kusoo dhawow warbaahinta gacal media bal nooga waran ninkan xagee ka soo qabateen ninka ardaalka dad shacabka ah ma barxada kullaayay waa waaga dawlad deegaanka uu galaa ka soo qaban waaga ciidanka booliska gacantooda ku dhinto la diray saxiixsana guurtida degmada bixisay iyo qabiilka iyo waaran maxkamadeed waa lagu dilay waaga waka saasana u dambeysay cidii amniga goldoob ka soo horteysata oo dadka dhibaato 7 days baan haw soconaya qofkii qor lagu qabto waa lagu dhex diliyaa magaalada dhexdeeda bataasaan la dhigay qof damba mobile furan karaan jiri qof shacab qof ku dhibaateyn kara ma jiro goldoob dhexdeeda intaan nool lahay ninkan magaciisa noo sax ninkan qabri adduun baa la yiraahdaa inaasiisa waa ninkii dadkaas shacabka dilay gaadiidka ku dhexlay meesha ku soo qabatan waa xagee waxa weeye qaxan dhaale meel dhow aad baa u mahadsantahay 7 days baan haw soconaya qofkii qor lagu qabto waa lagu dhex diliyaa magaalada dhexdeeda bataasaan la dhigay qof damba mobile furan karaan jiri qof shacab qof ku dhibaateyn kara ma jiro goldoob waxaan la taaganahay taleefanka booliska degmada goldoob kusoo dhawow warbaahinta gacal media bal nooga waran ninkan xagee ka soo qabateen ninka ardaalka dad shacabka ah ma barxada kullaayay waa waaga dawlad deegaanka uu galaa ka soo qaban waaga ciidanka booliska gacantooda ku dhinto la diray saxiixsana guurtida degmada bixisay iyo qabiilka iyo waaran maxkamadeed waa lagu dilay waaga waka saasana u dambeysay cidii amniga goldoob ka soo horteysata oo dadka dhibaato 7 days baan haw soconaya qofkii qor lagu qabto waa lagu dhex diliyaa magaalada dhexdeeda bataasaan la dhigay qof damba mobile furan karaan jiri qof shacab qof ku dhibaateyn kara ma jiro goldoob dhexdeeda intaan nool lahay ninkan magaciisa noo sax ninkan qabri adduun baa la yiraahdaa inaasiisa waa ninkii dadkaas shacabka dilay gaadiidka ku dhexlay meesha ku soo qabatan waa xagee waxa weeye qaxan dhaale meel dhow aad baa u mahadsantahay